magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose oo ay 19 bishan ciidamada xoogga dalka ay howlgal qorsheysan kula wareegeen ay ciidamadu ka sameeyeen howlgallo magaalada looga nadiifinayo haraadiga maleeshiyada naflacaariga ee Al-Shabaab. ciidanka ayaa howlgalladaas oo waqtiyo kala duwan ah ku soo qabqabtay ku dhawaad 100 ruux kuwaas oo badankood la sii daayay marka laga reebo 25 ay ku cadaatay inay Al-Shabaab ka tirsan yihiin. waxaa kale oo howlgalkaas lagu soo qabtay 2 maleeshiyada argagixisada Al-Shabaab ka tirsan xilli ay dagaalamayeen, taas oo tirada maleeshiyada la soo qabtay ka dhigaysa 27 ruux. waxaana shabaab oo ka tirsan oo Marka ah ma sha Allah waxay qabteen walaalii oo dawladda ay qabteen ma sha Allah waxaan milay gaarsanin hadda waxa jeclayna walaalii kale ina meeshii joogayna shay saas jeclay insha Allah oo degan magaalada Marko waa la soo qabtay waxaan lagu soo qabtay anoo shabaab ah oo bambatuura la soo qabtay markii la soo qabtay walaalii waxay dhaheen anay wax ku yeeli mayno ee runta iska sheeg nafsadaada iyo jirkaaga ba ku badbaadinayna markaasaan walaalii runta u sheegay dawladda haddana waxaan ka codsanaa in kasto al-qaacida ka mid tahay inay cafiso. magaalada Marka ayaa lagu dilay horjooge ka tirsanaa Al-Shabaab iyo 2 ilaaladiisa ah waqti yar kadib markii magaalada ay ciidamadu la wareegeen xilli xaafadaha dhexdooda uu isku qarinayay. masaajido ay xireen maleeshiyada argagixisada ee Al-Shabaab iyo suuqa Marka oo bilo ka hor u xirmay lacago baad ah oo ay ku soo rogeen ayaa haatan dib loo furay, waxaana imika magaalada ay u muuqataa mid ku soo laabanaysa noloshii caadiga ahayd. howlgallo cusub ay ciidanka xoogga dalka ka wadaan qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose, halkaas oo la doonayo in maleeshiyada naflacaariga ah ee Al-Shabaab looga saaro gobolka oo dhan. Maxamed Cali Cumar Juba, warbaahinta qaranka, magaalada Marka, gobolka Shabeellaha Hoose.